tababarkan oo la qorsheeyay oo socdo muddo 5 maalin ah ayaa lagu baran doonaa hanaanka isku dhafka maareynta kheyraadka biyaha Soomaaliya waxaana ka qayb galaya aqoon-yahano ku takhasusay qorshaha isku dhafka maareynta biyaha mas'uuliyiin ka mid ah wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha dawladda heer federaal iyo heer dawlad goboleed ardada jaamacadaha ka barta tamarta iyo kheyraadka biyaha iyo wasaarado kale oo ka tirsan dawladda oo wada shaqayn dhow la leh wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Soomaaliya agaasimaha waaxda cabirka iyo saadaasha biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Xasan ayaa sharaxay tababarka waxyaabaha lagu baran doono 5 maalin ee soo socota. Tababarkan wuxuu maanta bilowday wuxuu soconayaa 5 bari wuxuuna ku saabsan yahay hanaanka isku dhafka maareynta kheyraadka biyaha oo loo qabtay in ay ka faa'iideystaan dhammaan institutionada ku hawlan arrimaha maareynta biyaha oo ugu horeeyaan wasaaradaha heer federaal iyo heer state ee arrimaha biyaha ka shaqeeya iyo wasaaradaha kale oo la bahoobay maareynta biyaha ay ka mid yihiin beeraha deegaanka xoolaha iyo humanitarianka qorsheynta iyo ada wasaaradaha kale waxa kale oo tababarkan ka faa'iideysan doona 5 bari soo socota jaamacadaha ardada waliba kuliyadaha dhigta geologiga iyo kuliyadaha kale oo quseeya arrimaha biyaha hay'adaha gaarka loo leeyahay oo sida private sector oo biyaha ka shaqeeya 5 bari soo socotana wuxuu ku saabsanaan doonaa qaybaha kala duwan ee maareynta biyaha haday tahay isticmaalka biyaha haday tahay saadaasha biyaha haday tahay maareynta biyaha oogada sare iyo oogada hoose 5 barina waxaan rajaynaynaa in uu laga helo fikrad kooban habka maareynta biyaha oo dhammaan dadkaas oo ka shaqeeya institutionada kala duwan ay ula noqdaan xafiisyada ay ka yimaadeen xafiisyada ay ka shaqeeyaan wasiir dawlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwe Shukri Maxamuud Afrax oo furtay tababarka ayaa kula dardaarantay dadka ka qayb galay in ay ka faa'iideystaan cilmiga ay bixinayaan aqoon-yahanada bartay hanaanka isku dhafka maareynta biyaha horta waxa aan u baahanahay oo wasaaradana la rabo iyo UNDP iyo cid walba naga caawin karta iyo meediyaha dalku waxa weeye in loo furo dadka tababar loogu sheegay sida biyaha loo dhaqaaleeyo nin waxaan ku arkay social media nin hal koob oo biyo ah waa ku weesaysana sanku ku tirtiranaya gacmuhu ku dhaqanayo lagu waa hal koob oo shaaha oo biyo waxaan kan Soomaalida in la tusay oo loo saaro waana idin kula talin lahaa ina u saartaan ninkaas oo tustaan biyaha iyo faa'iidada marka marba ina idin ku dheeraado tababarkan 5 maalmood ah wax badan oo ogtihiin uu idin sheegi doona waxinaan ogeyn uu idin sheegi doona halka waanoon idin sheegayna marka xitaa ka bilaabo horta guriyihiina biyaha in la dhaqaaleeyo biilka biyo waa idin ka yaraan lahaayeen dan dadkaas aad barteen way sii fidin lahaayeen wacyi gelin in lagu sii daro oo xitaa dawlad goboleedyada dadka nooga yimid iyo agaasimayaasha iyo waxaan idinku waaninayaa inaa qabataan seminaaro noocaana oo aad bulshada ugu sheegaysaan Diibaan Cabdi Warbaahinta Qaranka Muqdisho.